munaasabadan ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen culimada diinka ahlus sunna wal jamaa isla markaana lagu weyneeyay xuska dhalashada nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa lagu qabtay masjidus saxaaba oo ku yaala wadada 12aad ee xaafadda Islii. munaasabadan lagu weyneeyay xuska 12 bisha Rabiicul Awwal oo ah maalintii uu dhashay nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa waxaa ka soo qayb galay safiirka dawladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Jamaal Maxamed Xasan waxaana uu la kulmay culimada diinka dhalinyarada ee ahlus sunna wal jamaa iyagoo ka codsaday in safaarada Soomaaliya ee la dhisayo loo yeelo masjid iyadoo safiirkuna uu ka aqbalay. waxa uu sidoo kale safiirku uu la kulmay imaamka masjidka wadada 12aad ee xaafadda Islii Shariif Cabdullaahi Shariif Xasan waxaana uu safiirku ugu hambaliyay culimada diinka ahlus sunna wal jamaa sida ay sanad kasta u soo abaabulaan munaasabada xuska iyo weyneynta dhalashada nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. qaar ka mid ah culimada diinka ahlus sunna wal jamaa oo ugu horeeyo imaamka masjidka wadada 12aad ee xaafadda Islii Shariif Cabdullaahi Shariif Xasan ayaa waxa ay ka hadlayaan muhiimadda ay leedahay in la xuso oo la weyneeyo maalinta uu dhashay nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee iyo sida ay muhiim u tahay in la jeclaado nabigeena. maalinka nooca ayaan maanta u dabaaldegaynaa caalamul islaamina dhammaantii looga dabaaldegayaa muxibbiintoona ay u dabaaldegayaan. munaasabada way tamashaan iskugu nimid meelo badanna maanta caalamka liskaga yimid inagoo ka rajaynayno ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu inaga dhigo kuwa shafaacadiisa ku nasiibsaday ee helay ee ilaahay uu qadaray xawlkiisana ka cabay. marka salawaadkii iyo khayrkii iyo nafaxaadkii iyo siiradii la akhrinay inoo soo socdeen meelihii ugu khayr badnayd baan maraynaa oo al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar iyo khayrka oo isu sheego nabi maxamed rasuul darma. أيها المسلمون إن محبة النبي نبيك جعيل كيسة حب كيسة هي المنزلة ودرجة يتنافس فيها المتنافسون ودرجة ذلك برتما يا برتمان وإليها يشخص العاملون ودرجة ذلك عمل فليا أي أكر نقضان روحان أكر نقنن مكر نقنن قفك النبي جديد عليه الصلاة والسلام وأصدق تيرتان كيس الديدة وأصدق إن فرحي سيديدة وأصدق نقن كيس الديدة وإنه أمضى وكسر عن يهي الديدة وأنا إذا بدي هاي هذا mooyaane inta kale waa galaysaa. asxaabtu waxay yiraahdeen waa la yaaban waxay yiraahdeen day qof janna diidaya ma jira yaa waa qofkaasu. nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam qofkii aanay adeeca oo raadkayga qaada oo nabinimadayda say tahay ugu dhaqma faqad dakhala al-janna. safiirka dawladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Jamaal Maxamed Xasan ayaa waxa uu muujiyay sida ugu faraxsan yahay in culimada diinka ahlus sunna wal jamaa uu kala qayb galo xuska iyo weyneynta dhalashada nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee isagoo uga mahad celiyay culimada diinka munaasabadaha ballaaran oo caalamka meel kasta ay uga qabtaan sanad kasta taasi oo ay ku muujinayaan weyneynta maalinta uu dhashay nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo maalintii xuskii weyneyntii dhalashada nabigeena صلى الله عليه وسلم oo ka dhacaysa xarunta masaajidka 12ka Islii. sadaragtaan waxaan wada joognaa imaamka masaajidka iyo culimadii kale intii wax lagu farxo weeye in maanta umad Soomaaliyeed maadaama nahay xusno dhalashada nabigeena sallallahu alayhi wasallam aynu isugu nimaadno oo tashano oo aan xaflad ku samaysano masaajidada ee xarumaha muslimiinta. marka aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta waa 12 Rabiicul Awwal maalin ummadda Soomaaliyeed muslimiinta meel ka soo joogaan ba ku weyn weeye. marka waxaan rajeynayaa in dadka Soomaaliyeed haddii ay sanadkiisa kale ay ku gaaraan nabadgelyo iyo barwaaqo iyo caafimaad. culimada diinka waxaan ka codsanaynaa inay ummadda Soomaaliyeed shaqada hadda hayaan si la walaabaan oo wanaagga ka shaqeynayaan si xoojiyaan dadka Soomaaliyeedna ay isku hayaan isu keenaan soo ururiyaan. aadna waxaan ugu mahadnaqaynaa shaqada fiican ay ka wadaan masaajidka iyo xaafadda Islii iyo magaalada guud ahaan iyo waddanka Kenya guud ahaan. anaga safaarad ahaan aad baan rabnaa inaan la shaqeyno dhammaan culimada Soomaaliyeed meel kasta joogaan wixii wanaag ka shaqeynaya la shaqeyno wixii dhibaato ummadda ku hayaan aan waxaan ka codsanaynaa ku dhiirigelinaynaa in dadka Soomaaliyeed dhibaato ku filan waa soo gaartay in wanaag waxaan ahayn laga shaqeeyo. Maxamed Waare, telefishinka qaranka Soomaaliya, Nairobi.